So to come to this place and lecture us humanity and genocide and human rights and independence and democracy. Okay, wuxuu ku bilaabay hadalkiisa so to come to this place yani macnaheedu markaynu gaar u macnayno waxay la macno tahay to come to this place sida halkan u timaadid laakiin isagu wuxuu ka wadaa marka yani lagu macneeyo hadalku isaga is macneeya hadalka ka dambeeya so to come to this place and lecture us yani intuu halkan yimiday ayuu anaga noo sheegaya anagu yani noo sheegay ama lecture wax weeye ama muxaadaro ama hadal soo jeedin ayuu intuu halkan yimid ayuu to lecture us anaga noo sheegaya humanity yani humanity waxa weeyaan bini'aadantinimada aan genocide iyo xasuuq aan human rights iyo xuquuqda bini'aadantinimada aan independence iyo madax banaani aan democracy iyo dimuqraadiyad yani intuu halkan yimid ayuu anagii nooga sheekeynayaa bini'aadantinimo iyo xasuuq iyo waxaas wuxuu ka hadlayaa ninkan Soomaaliland ictiraafay dooda kala soo horjeeda reerka ka bilaabo magaca ayda. And we know what you're doing on a daily basis is just an insult. I will make 3 points, Excellency. Okay, isagoo hadalkiisa wata waxa uu yiri we know what you are doing on a daily basis yani waan ognahay waxaad maalin kasta samaysid maalin kasta waxaad samaysid waan ognahay we know what you are doing on a daily basis waan ognahay wax kasta oo maalin kasta samaysid yani wuxuu ka wadaa waxyaabo maalin kasta ay ka sameynayaan Palestine ama Gaza. Okay, wuxuu yiri it's just insult kaliya wax weeyaan insult waa cay ama waa aflagaado. Okay, tusaale ahaan waxaad oran kartaa he insult me we cay ama we aflagaaday. Okay, why you insult us maxaa noo aflagaadeen ama maxaa noo caaysa. Okay, wuxuu yiri I will make 3 points excellent waxa sheegi doonaa 3 qodob oo fiican yani make halkan waxa ugu jirtaa sheegitaan. We see today and time again are acts to terrorize civilian populations and crimes against humanity. Okay, what we see today macnaheedu waxa weeye waxaan arkayna maanta and time again iyo marba mararka ka dambeysa amba mararka ka dambeeya yani time again macnaheedu sidoo kale waxaad oran kartaa again and again yani marba marka ka dambeysa. What we see today waxaan maanta arkayna and time again iyo marba mararka ka dambeysa are acts wax weeye waa falal to terrorize oo lagu argagax gelinayo ama lagu cabsi gelinayo civilian population shacabka. And crimes against humanity and forced displacement of a whole community. Sidoo kale hadalkiisa wuxuu ku daray and crimes against humanity iyo dambiyada ka dhanka bini'aadantinimada. Crimes waxa weeye dambiyada against waxa weeye ka soo horjeeda ama ka dhanka humanity-gana waxa weeye bini'aadantinimada. And crimes against humanity iyo dambiyada ka dhanka bini'aadantinimada and forced displacement of the whole community iyo barakicinta qasabka ee dadkii oo dhan loo adeegsaday. Forced waxa weeyaan waa la qasbay ama waa la jajubay displacement waxa weeyaan in dadka la barakiciyo ama meel kale loo raro of whole community oo yani bulshadii oo dhan waa la barakiciyay. Community starvation of innocent people and killing and maiming hundreds of thousands. sidoo kale isaga hadalkiisii wata wuxuu yiri starvation of innocent people waxa weeyaan macluul loo geystay dadkii yani aan waxba galabsan ee masaakiinta. Okay, starvation waxa weeye waa macluusha ama waxa weeye gaajadu markay saayid ka tahay gaajada caadiga waxa weeyaan waa hungry markay gaajadu saayid ka tahay macluushana waa starvation of innocent people ee dadkii masaakiinta. Innocent waxa weeye dadka bilaa dambiga ama dadka aan waxba galabsan. Sidoo kale waxa ka soo horjeeda guilty tusaalaha waxa la he's a guilty man waa nin dambiile ah he's a innocent person waxa weeyaan qof bilaa dambi ah oo yani aan waxba galabsan. Innocent badanka waxa weeyaan caruurta oo kale ayaa innocent dadaan waxna galabsan iska masaakiin weeyaan. And killing and maiming hundreds of thousands and someone doing all these things are lecturing us today. sidoo kale hadalkiisa wuxuu ku sii darsaday and killing and maiming hundreds of thousands waxay dileen oo ay dhaawaceen aan iraahday ay naafeeyeen boqolaal kun. Okay, and killing wax weeye dilmada maim wax weeyaan naafada qofku markuu wax lagu dhufto oo u naafoobo ama lugoodo ama wax kale ku dhacaan maim baa la yiraahdaa. And maiming waxay u naafeeyeen hundreds of thousands kumana boqolaal kun. Thousands. And someone doing all these things are lecturing us today what they call genocide and things like that. wuxuu ku daray someone doing all these things qof sameynaya waxaan oo dhan are lecturing us today ayaa maanta inala hadlaya oo wax inoo soo jeedinaya wax inoo sheegaya someone doing all these things
qof waxaan oo dhan sameynaya are lecturing us today ayaa maanta inaga us waa inaga today ayaa maanta inoo yani lecture garaynayo inala hadlaya. Okay, wuxuu ku daray what they call macnaheedu waxa weeyaan maxay ugu wacaan ama maxay ugu yeeraan sidan oo kale waxyaabahan oo kale what they call maxay ugu yeeraan ama maxay ugu wacaan. I'm shocked to listen to the outrageous comments from the Israeli representative. wuxuu dhahay I am shocked to listen waan ka naxay markaan dhageysta I am shocked waxa weeye yani waan ka naxay I am shocked to listen waan ka naxay markaan dhageystay. inta yara koobanayno maanta insha Allah asxaabay soo qaadan haddaad u baahan tihiin turjubaad 10 ah adeed mahadsantiin insha Allah commentiga noogu reeba waan u baahanahay baad odhanaysaan insha Allah aniguna waan idiin soo badinayaa. Assalaamu calaykum see you next.